kuwani waa qaar ka mid ah wadaadada Gaarisa waxayna ahaayeen kuwa dhigaya madaraso ma ahayn kuwa meel kala dhaqaale ka soo galayay haatan madarasadii waa la xiray xaalada adag ayaa haysta qoysaskooda nolosha ayaana aad ugu cakiran waxayna muslimiinta ka dalbanayaan in gargaar loo fidiyo si ay u kaabaan nolosha qoysaskooda intooda badan culimadani waa culimo noloshooda ka soo saaran jiray madarasada haatanna madarasadii waa ay xiran tahay taas way sababta keenayso inay qaylidhaantan muujiyaan durkan muddo 3 bilood mishaar ma qaadanin maxaan ka gudbinayaa oo sheegaya muslimiinta muxsiniinta ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uu siiyay inay markiisa soo caawiyaan baan weydiisanaynaa sifa ay maartay xajaadkoodii ilmaha muslimiin yaa meesha lagu baraa dad baa ku baahan oo maartay wazaazi ah oo ilmihii ma garanaysaa sugayaan ayagana ku rafaasan jazaakumullahu khairan bisha Ramadaan baa lagu jiraa bisha sadaqaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka wax siiyay maxaan rajaynaynaa inay maartay soo caawiyaan markiisa soo caawiyaan oo ma garanaysaa ay dadkaas muslimiinta walaalahood ah xajaadkooda isagu jazaakumullahu khairan fadlan walaal waxaad isku daydaa inaad kaaliso culimadan adigoo markaasi u soo marinaya wixii aad awoodo nambarada shaashada ku qoran waxaan idin ka codsanaynaa si diiran in fiidiyogan aad sii qaybisaan oo walaalaha kale ee muslimiinta ee muxsiniinta ah ee jecel inay kaalmeeyaan walaalahooda tabaalaysan dhibaataysan mishaar la'aanta haysato waxaan walaalaha muslimiinta dhammaan fariintana ugu gudbinaynaa inay ka soo jawaabaan si noloshooda u helaan qoysaska macallimiintan ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay waxa la baxdiin waa helaysin wama anfaqtum min shay'in fa yukhlifu wa khayru raziqin waxa hadda la baxdo ilaahay subhanahu wa ta'ala intii hayso haduu ilaahay waxa ku siiyay awal markeeda ayaa helaysa taasoo adduun iyo aakhirabo ayaa ka helaysa marka walaalayaal waxaan naga codsanaynaa dadka muslimiinta dhammaan meel ay joogaan inay ilgaar ku fiiriyaan xaaladan maanta lagu jiro ay dhibaatada ee uga baxaan dadka walaalayahood oo muslimiinta ah ayadoo saasi haddana lagu jiraa bil Ramadaan oo barakeysan oo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo sadaqada u laawi jiray ayaa lagu jiraa maadaama bisha Ramadaanka lagu jiro waxaan rabnaa dadka muslimiinta oo muxsiniinta wanaagsan inay garab istaagaan ee arintan ay ka danqadanayeen inay dadka soo caawiyaan meeshan joogaan markazka ibn Abbas iyo wixii la mid ah oo muslimiinta caawin karaan inay caawiyaan ayaan doonaynaa waxay ahaayeen kuwa dhigaya qowlka Alle waxayna ahaayeen kuwa ugu wanaagsan bulshada markii ay dhex joogeen bas haatani waxa soo food saaray nolol darri aad u adag markii dugsiyadoodii iyo madaaristoodii la xiray fadlan isku day inaad soo caawiso walaalahani macallimiinta dugsiga waa aad bay iskaga rafaadsan yihiin ilaa 3 bilood meeshan waxba kama qaadanin muslimiintana waa dad walaalo ah hal jid bay yihiin muslimiinta xagga isjaceylkooda iyo isku kaalmeentooda iyo isku naxariishadooda saad ogtiin macallimiinta dugsiga akhrisa guriga kare iskaga jiraan biilal bay ka qaataan dukaama wixii oo dhanna meesha caruurta dugsiga bay wax ka heli jireen wixina hadda waa istaagay adduunka oo dhan ba iska xirxirmay waxaan marka codsanaynaa macallimiintan aad aragtiin waa dad walaalihiin ah qof walba oo muslim ah oo ka danqanaya arinta muslimiinta maanta haysata wuxuu kula garab istaagi karo walaalayaal inaad kula garab istaagtiin sadaqada fadligeeda waad garanaysiin iyo qiimaha ay leedahay nabiga kaleeyhi salaam oo lahaa warnaarta ka gaashaanta walow bishiqi tamra yaani timir jeexed waad garanaysiin waa qaaya arinta ayada waad garanaysiin fadliga ay leedahay maalinta qiyaamahana qofka muslimka wuxuu harsani sadaqadiisa hooskiisa ayuu harsanaya waad ogtiin ruuxa markuu qiyaamaha tago wuxuu arkayaa hor buu fiirinaya naarti buu arkaya intuu fiirinaya naarti buu arkaya ilaa wuxuu u baxsanaya waxa waaye wuxuu asaga la baxo marka walaalayaal maadaama dugsiyi ay xiran yihiin dhibaatooyin fara badan ay iska jiraan waxaan inaga codsanaynaa inaad noo soo kaalmaysiin oo dadka muslimiinta walaalihiina waxaad kaga qayb qaadanaysiin aad kaga qayb qaadatiin oo Allah ina barakeeyo waa inii ducaynayna insha Allah ta'ala intaasaan hadalkay ku soo koobaya sallallahu alayhi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam